waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha afraad sanadka 2026 waa mid kamid ah maalmaha ugu quruxda badan ee shacabka gobolka Banaadir maadaama maanta la dhaarinayo 390 xubin ee golaha deegaanka Xamar kuwaas oo 25 bishii December ee dabayaaqadii sanadkii tagay lagu doortay gobolka Banaadir munaasabada dhaarinta 390 xubnood ayaa ka dhacaysa halkan oo ah xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galaya oo dawladda federaalka Soomaaliya laamaheeda kala duwan ah wasiiro iyo mudan kale ayaa halkan imaan doona si ay goobjoog uga noqdaan munaasabada dhaarinta xubnaha golaha deegaanka ee Xamar kuwaasi oo dhaarinta kadib si rasmi ah u howlgali doona isla markaana malafkooda ay la wareegi doonto wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya guddiga doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha ayaa dadaal xoog leh oo uu sanado soo waday waxa uu ugu dambeyn ku guuleysanayaa in maanta la soo afmeero isla markaana la dhaariyo xildhibaanadii golaha deegaanka ee sanadkii tagay dabayaaqadiisii lagu doortay magaalada Muqdisho doorashadaasi oo ahayd mid taariikhi ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay u riyaaqaan waa Maxamed Suleymaan Nuur oo idin kala soo hadlaya xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed halkan oo ay goordhow ka bilaabanayso dhaarinta xildhibaanada golaha deegaanka Xamar